Britain ayaa joojineyso dhammaan duulimaadyada uga yimaada dalka Koonfur Afrika iyo 5 dal oo kale oo ku yaala gobolkaas. Tallaabadan ayaa ka dhalatay kadib markii gobolkaas lagu arkay nooc cusub oo fayraska corona ah kaasoo si weyn u faafa. Xayiraadda oo ah mid kooban ayaa dhaqangeli doonta saacadaha soo socda. Waxaa jira walaac ah in tallaalka hadda jira aan wax badan ka qaban doonin noocan cusub ee corona ah. Dowladda UK ayaa joojineysa dhammaan duulimaadyada uga yimaada dalka Koonfur Afrika iyo 5 dal oo kale oo ku yaala gobolka. Waxaana tallaabadan dowladdu ay uga jawaabaysaa kadib markii lagu arkay nooc ka mid ah fayraska corona oo la sheegay inuu aad u faafo. Haddaba warkaasi waxaa soo akhrisay oo haatan stuudiyaha igula soo biirtay Fartuun Ismaaciil. Fartuun, bal nooga waran hadalkan ka soo baxay Dowladda Britain. waa mahadsantahay xasan oo xogayaha caafimaadka UK Sajid Javid ayaa sheegay in laga bilaabo saqda dhexe ee caawa 6 wadan lagu soo dari ama lagu dari doono liiska cas iyadoo duulimaadyada si ku meel gaar ah loo xanibay. Mid ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa ku tilmaamay fayraskan cusub inuu yahay kii ugu xumaa ee ilaa iyo hadda la arko. Wali wax kiisas ah ee lagama xaqiijin gudaha dalkaasi UK kaliya 59 xaaladood oo la xaqiijiyay ayaa ilaa iyo hadda lagu arkay dalalka Koonfur Afrika, Hong Kong iyo Botswana. Dhammaan duulimaadyada ka imanaya Koonfur Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho iyo Eswatini ayaa la hakiyay. Mr. Javid ayaa sheegay in saynisyahanadu ay aad uga walaacsan yihiin faracan cusub laakiin loo baahan yahay in wax badan laga barto. Laakiin waxa uu sheegay in fayraskan laga yaabo inuu wax badan ka duwanaan karo kii hore ee Delta. Waxa uu sheegay in 6 wadan ee liiska cas lagu daray ay micnaheedu tahay in la taxadaro oo tallaabo la qaado si la isugu dayo in sida ugu macquulsan loo ilaaliyo xuduudaha. Laga bilaabo saqda dhexe ee caawa oo Jimco ah, dadka aan ahayn reer UK iyo Irish waxa laga mamnuuci doonaa inay soo galaan England haddii ay joogeen 6 wadan ee la soo sheegay 10 maalmood ee la soo dhaafay. Qof kasta oo Ingiriis ah ama Irish ah ayaa xasan oo ka imaanaya wadamada wixii ka dambeeya Axadda wuxuu isku karantiili doona hotel iyadoo kuwa soo laabanaya xilliga ka hor laga codsan doono in ay guriga isku karantiilaan. Kuwa soo noqday 10 maalmood ee la soo dhaafayna iyana waxa laga rabaa in ay baaritaano maraan. aad bay u mahadsan tahay Fartuun Ismaaciil oo nala socodsiinaysay warkaasi ku saabsan Dowladda Britain oo joojinaysa duulimaadyada uga yimaada qaar ka mid ah dalalka Afrika.